maanta waxaan soo gaaray degmada Kaxda oo dhibaato badan ka jirtay dadka ku nool barakacayaasha degmada Kaxda waxaan soo gaarsiinay bacyo iyo busto iyo caagag biyaha lagu shubto dadka meesha aan joogo aan siinay bacyada waa dadkii mudnaa ee baahiyada gaarka qaba waa indhoolayaal iyo curyaamiin iskugu jira oo ka kooban 250 qoys aan gaarsiinay bacyadaaseeti waxaan rajaynaynaa intaas in ka badan inuu soo gaari doono hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan rajaynaynaa inay ka baxdeen magaca barakac inay ka baxdeen 2022 inay ka baxdaan barakac aan noqotaan dad deegaan ah u shaqeysto degmada ku nooshiin ah ka shaqeysataan aad joogtaan oo idin la dhihinba barakac waay ka mid noqotaan dadka ku nool caasimadda gobolka Banaadir aan rajaynaynaa waxaan idin sheegaynaa mudnaanta ugu horeysa inay idin ka tihiin inaan nagu tashanaysiin hadduu Ilaahay yiraahdo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto walaalihiina Soomaaliyeed oo ka soo barakacay gobolada dalka inaa u gargaartaan maadaama lagu jiro bil Ramadaan inaad u soo gargaartiin walaalaha Soomaaliyeed ku nool caasimadda gobolka Banaadir inaa gargaar ula soo gaartaan way dhibaataysan yihiin xilli roob lagu jiraa waxaan rajaynayaa baaqeen inay dhageysan doonaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto